Diblomacy Media ayaa daawanaysa. Waa 14 bisha Oktoobar 2025. Soo dhawaada. Kadib sanado badan oo ay ku jireen silsilado iyo xabsi adag, tobanaan maxbuus Falastiini ah oo ay ku jireen xukunno daa'in kuwa lagu xukumay ayaa si rasmi ah u helay xorriyadooda. Taasi waxay la macno tahay guul weyn oo u soo hoyatay halganka maxaabiista Falastiiniyiinta. Maxaabiistan oo intooda badan ka tirsanaa kooxaha iska caabinta ayaa nolol adag ku soo qaatay jeelasha Israa'iil, iyagoo noloshii xabsiga u bedelay halgan joogto ah oo saldhig u yahay sharaf, adkaysi iyo dhiiranaan. Waxaa si gaar ah u xuseynaa 4 maxbuus oo xabsiga kaga baxay iyagoo wejiyo dhoola cadeynaya laakiin xambaarsan xusuus xanuun badan iyo raadad aan weligooda ka tirtirmi doonin. Maxaabiistan ayaa kala ah Samiir Abu Nacma, Maxamuud Ciise, Baahir Beder iyo Maxamuud Abu Tubeyk. Inkastoo xorriyadda loo fasaxay, haddana Israa'iil waxay si qasab ah uga musaafirisay oo ay geysay dalka Masar. Maxay galabsadeen? Aan mid u soo qaadano. Samiir Abu Nacma, halyeeyga 39 sano xabsi ku qaatay. Inkastoo la soo fasaxay, haddana waxaa la yiri ma sii joogi karo Falastiin ee waa in la geeyaa Masar. Samiir Abu Nacma wuxuu xabsiga galay sanadkii 1986 isagoo 26 sano jir ah, kana tirsanaa ururka Fatah. Waxa uu ka qayb qaatay howlgallo ka dhan ah Israa'iil, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. Muddadii uu xirnaa waxa uu ku wareegayay ama la geenayayba xabsiyo kala duwan, isagoo la kulmay tacadiyo joogto ah, caafimaad darro iyo duruufo nololeed oo adag. Intii uu xirnaa ayuu waayay hooyadii iyo 3 ka mid ah walaalihiisa, isagoon helin fursad uu ku aaso ama uu ku macsalaameeyo. Xorriyadiisa ayuu helay kadib 39 sano oo uu jeel ku jiray. Ninka labaad waa Maxamuud Ciise, maskaxdii hal-abuurka iyo halganka. Maxamuud Ciise wuxuu ku dhashay degmada Anaata ee magaalada Qudus sanadkii 1968. Waxa uuna ka mid ahaa aas-aasayaashii unugga gaarka ah ee la yiraahdo Hal Eber Hal ee hoos tegayay xarakada Xamaas. Unuggan ayaa ku caanbaxay howlgalladii afduubka askarta Israa'iil ee loogu talagalay in lagu beddesho maxaabiis Falastiini ah. Wuxuu ku xirnaa 3 xabsi daa'in ah iyo 46 sano oo dheeraad ah, isagoo 13 sano ku qaatay xabsi gooni ah keligiisa. Intii uu xirnaa waxa uu noqday aqoon-yahan iyo qoraa caan ah oo qoray buugaag diiradda saaraya siyaasadda, dhaqanka iyo halganka gudaha xabsiyada. Ninka saddexaad waa Baahir Beder, arooska oo u bedelay xabsi daa'in. Baahir ayaa xabsiga loo taxaabay sanadkii 2004, toddobaadyo ka hor arooskiisa. Waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa Al-Qassam iyo inuu ku lug lahaa weeraro ka dhacay gudaha Israa'iil. Waxaa lagu xukumay 12 xabsi daa'in ah kadib baaritaan socday in ka badan 4 bilood. Walaalkiisa Baahij ayaa la xiray isla habeenkaas, isagoo lagu xukumay 18 sano xabsi daa'in ah. Waxa kale oo la xiray hooyadood, inkastoo ay xanuunsaneed oo da'aheed. Qoyska waxa uu astaan u noqday tacadiga lagu hayo qoysaska maxaabiista Falastiiniyiinta. Ninka kale waa Maxamuud Abu Tubeyk, aqoon-yahan xabsiga ku barbaaray. Maxamuud Abu Tubeyk wuxuu ka soo jeedaa magaalada Jiniin ee Daanta Galbeed, wuxuuna markii ugu horeysay la xiray sanadkii 1999. Wuxuu dib ugu laabtay halganka kadib sii deyntiisii, isagoo markan ku biiray Saraaya Qudus ee hoos timaada Islamic Jihad. Wuxuu xabsiga galay sanadkii 2002, waxaana lagu xukumay 2 xabsi daa'in ah iyo 15 sano oo kale. Intii uu xirnaa wuxuu dhammaystay 3 shahaado jaamacadeed. Wuxuu qoray buug 2 qaybood ah oo lagu magacaabo Dabar al-Sadiqiin oo uu ku ururiyay taariikhda 42 maxbuus. Waxa uu sidoo kale bilaabay barnaamijka masterka oo ku saabsan arrimaha Israa'iil, isagoo noqday aqoon-yahan caan ah oo lagu xushmeeyo gudaha jeelasha. Haddaba maamulka jeelasha Israa'iil ayaa shaaciyay in la sii daayay 1986 maxbuus Falastiini ah, kuwaasoo qayb ka ah heshiis ay wada gaareen xarakada Xamaas iyo Israa'iil. Waa qayb ka mid ah saaxiibayaal taariikhda maxaabiistii Israa'iil ay soo fasaxday. Kuwa kale oo intan sheekooyinkooda ka xanuun badan ayaa jira. Waan ka gudbayaa. War cusub ayaan idinla wadaagaya iyo hadal ka soo baxay Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulka uu hogaamiyo uu hadda xooga saarayo dib u dhiska marinka Gaza kadib heshiis lagu soo afjaray dagaalkii socday in ka badan 2 sano.
Trump oo khudbad ka jeediyey booqasho uu ku tagay Israa'iil iyo magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar ayaa ka gaabsaday inuu si cad u taageero xal laba dowladood ah, taasoo ah aragti muddo dheer ay garab taagnaayeen Mareykanka iyo beesha caalamka. Wuxuu sheegay in arrinta ugu muhiimsan waqtigan ay tahay dib u dhiska Gaza, halkii laga hadli lahaa xalka hal dowlad ama laba dowladood, isagoo intaasi ku daray in aragtiyaha kala duwan ee xalka laga leeyahay aysan hadda ahayn mudnaanta koowaad. Arrin ayaa halkaasi kaga soo baxaysa oo ah in sababta ka dambeysay Trump inuu ku qasbo Netanyahu inuu heshiis qaato waxaa qayb ka ah dad badan qaybtan ma falanqeeyaan, laakiin waa in la ogaadaa waxaa qayb ka ah dowladihii reer Yurub ee sida iskaga soo daba dhacay oo ku dhawaaqayay in Falastiin dowlad loo aqoonsado. Arrintaas qayb weyn oo falanqeeyaasha ay hilmaamsan yihiin ayay ka qaadatay in Trump uu ku qasbo Netanyahu inuu heshiis ka qaato. Waayo Trump maanta wuxuu leeyahay hal laba dowladood hadda mudnaanta nooma aha. Mudnaanta waxay noo tahay inaan dib u dhis ku sameyno marinka Gaza. Dib u dhis Gaza lagu sameeyana sanado ayay qaadanaysaa, taasoo macnaheedu yahay wuxuu doonayaa in la hilmaamo xal laba dowladood. Hadda waayo waxaa la hadalhayaa waxay tahay xal laba dowladood in la helo oo Falastiin dowlad ahaan loogu dhawaaqo, laakiin wuu diidan yahay ninkan. Marka waxay taasi cadeynaysaa markii horeba heshiis in la gaaro qayb waxaa ka ahayd cadaadiskii dowlado badan oo reer Yurub oo Ingiriisku ugu horeeyo ay ku dhawaaqeen inay Falastiin aqoonsan yihiin. Waa tahay kow lama joogo halgankanna mid maanta iyo beri u dhow ma aha. Trump oo hadal ka jeediyey Sharm el-Sheikh ayaa ugu baaqay wadamada bariga dhexe inay furaan bog cusub oo ku salaysan is-afgarad iyo iskaashi, isagoo sheegay in fursad mar kaliya ku timaado nolosha ay maanta taagan tahay si loo soo afjaro khilaafaadka taariikhiga ah. Madaxweynaha Mareykanka wuxuu sidoo kale ballan qaaday in Mareykanka uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Gaza, isagoo ugu baaqay shacabka Falastiin in gabi ahaanba ay ka tanaasulaan wadada rabshadaha iyo weerarada. Wahagaag xaalka sidaas weeyaan wixii soo kordhay ee kale waan idinla wadaagi doonaa. Laakiin dhinaca kale hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Qatar, Masar iyo Turkiga ayaa ku kala seexday magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar heshiis taariikhi ah oo lagu soo afjarayo colaadda ka jirtay marinka Gaza. Heshiiskan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inuu soo afjaro dagaal socday in ka badan 2 sano, uuna horseedo xasilooni iyo dib u dhis degdeg ah oo laga hirgeliyo gudaha marinka Gaza. Haddaba qodobada muhiimka ah ee heshiiskan maxay kala ahaayeen? 1. Joojinta dagaalka si rasmi ah iyo suurtagalnimada xabad joojin waarta. 2. Isweydaarsi maxaabiis ah oo u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil. 3. Gaarsiinta gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah gudaha Gaza. iyo 4. Dhismaha maamul kumeel gaar ah oo Falastiin maamusha. Sida ku cad warqad rasmi ah oo laga sii daayay aqalka cad, dalalka saxiixa heshiiskan waxay muujinayaan taageero buuxda oo ay u hayaan fulinta qodobada heshiiska, iyagoo adkeynaya muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee labada dhinac. Tahay shirka nabadda ee Sharm el-Sheikh waxaa ka qayb galay in ka badan 30 hogaamiye oo caalami ah oo ay ka mid ahaayeen amiirka Qatar, boqorka Urdun, madaxweynaha Turkiga, dhigiisa Faransiiska, ra'iisul wasaaraha UK, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo madaxweynaha Ciraaq. Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi oo martigeliyay shirkan ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay bilow cusub oo lagu dhisayo nabad waarta oo gobolka bariga dhexe ka hirgasha. Intaas ayaan barnaamijkeen ku soo afmeeraya.